بروفيسور عبد السلام ياسين iyo injineer maxamed xaashi cilmi wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo hadda ku jira siyaasiyiinta madasha wada tashiga oo ka kooban siyaasiyiin ku foogan dhaqdhaqaaqyada dhanka siyaasadda ee Soomaaliland ka taagan ayaa maanta warbaahinta waxay u sheegeen inay ka soo horjeedaan in Soomaaliland ay wada hadal la gasho dawladda Soomaaliya wada hadalkaas oo in dib loo bilaabo ay ka shaqeynayaan xukuumadaha Muqdisho iyo Hargeysa anigu taa xukuumadda muwaafaqsani حقنا معها دونا إنه معها ومال كدع محوها اللوجي سنة يومد وحنا نقول قضاء مركب كل كهرباء وهذا الكلام فري الصومالية أي خالد وين إنه جوا وحويا صوماليا ولا إنه جماعي وحرجاء الصومالية إيو صوماليان كصوم مغض أما كدحية أما إيمان كرا ما قبلنا يمحوها جيران مستقبلية إما كبا كل كاد أصي فيرستو وحويان نمكي وحن جيستي Somaliland بابية UN كنا ويكسحلنا وحي ethnic cleansing وحي أي كوسمين جيران ذاتك الرواندية وحي لو سمي إنجا هكردين وUN كإيه وحن سوتها تين مسوا وتقول إن عندنا مسوا قاعدين ويا وحن فرماجنا كمغلي محوا شروط يعني لا إيمان شروط ولا لا إيماني شروط سواحويان تدكي وحن جيستي حقو ذا وحي كقرينهين نمان جيسياله ودتكي وحن جيستي هالك لقى عقابلها أيه كمردينهين أيه كجيران إن ضد محوها جيسياله والله ما فكرة دوك هذا كلفوك كل كانوا حقبها كتجانا ومحوها وخاين إنه تجانا معها عدي نجتك تماها وحويان وهذا الكنا هذاني كجرابين وحيل إنه جيستي وأين رجي وحن جيستي دبجلين وندم بيجودي اللجوء قادين إن نوضح هذا الله معها إن نؤتجنا معها إن نوحسكو درسنا معها أنا وحن قبا نمان لوتي كرو حلو درسن كرو معها وحن قبا احترام درده اللي جدا يومدن لجوء هيو إمام الكيس إيران يبلابي أن وضح هذا الله ما هي نكو وضح هذا إن أينو أما تشوفي سبا إنه وده هذا الله ذن كلا كسابسن وده هذا الله دي إنك أي سومالي كدحي إن أينو كسوهر مرينو مدنان تنسي إنه إنك جودهين إنه لما يسترنو وحلا وحي وده هذا يسافر كرشوا iyadoo dhawaan uu shirka dhacay wadanka Nigeria kaasoo lagaga hadlayay amuuraha waxbarashada oo ay ka qayb galeen wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiirka waxbarashada Somaliland iyo wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ee Puntland ayaa Professor Abdul Salam Yaasin waxa uu uga digay in wasiirada xukuumadda Somaliland ay iska ilaaliyaan shirarka caalamiga ah inay ku tagaan magaca Soomaaliya وحويان Somaliland horta waa dal madax banaan Soomaaliya waynu kala tagnay markay timaado in meelaha dibadaha la inaga marti qaado waxay tahay inagoo Somaliland in aynu tagno hadii marka aynu tagayno loo qaadanayo dad maamul goboleedyada kale inta yimaadaan Soomaaliya ka tirsan deynaynu tagno maaha markaas waynu shirarka caalamiga waxa lagu qabsanayaa inta badan waxa la yiraahdaa waa wax mucaawin haday ugu badato ka soo baxdo معاوندنا waxa ka sii muhiimsan ba waxaynu inagu qabsan karayno cazumad la soo mariyo Soomaaliyana ma aqbalo oo waxa weeyaan cazumada Soomaaliya la soo marinaya damid inaga inoo taalo ma hadii la soo mariyo Soomaaliya ku koobantay waa bes halkaas inay ku joogto marka waxa fiican in aanay dad Somaliland metelaya nama wasiirada magaasiimalaadeen marnaba loo soo marin martiqaad ay ku tagaan martiqaad Soomaaliya loo soo mar labaadkana haday tagaan inay ismuujiyaan iyagoo Somaliland hadii Somaliland nimada lagu diidana inay markaa iskaga yimaadaan halkaas oo aanay shirka ka qayb galin halkaas aan taagan Cabdi Shakuur Day Maxamed Hon Cable TV Hargeysa